halkani waa KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 8 bisha Agoosto sanada 2019 waa maalinta 220aad ee sanadkan waxa sanadkan kaarsan 145 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxa kamid ah maanta oo kale sanadku markuu ahaa 1306 boqorkii xilligaas ee dalka Poland ee la oran jiray Wenceslas ayaa toogasho lagu dilay maanta oo kale sanadii 1648 suldaankii magaalada Istanbul Sultan Ibrahim la oran jiray ayaa xabsi la dhigay maanta oo kale sanadii 1937 ciidamadii Japan ayaa qabsaday caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing maanta oo kale sanadii 1940 diyaaradihii dagaalka Jarmalka ayaa duqeyn xoog lahayd waxa ay ka geysteen dalka Ingiriiska maanta oo kale sanadii 1945 dawladii Soviyeetka ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan dawladii kale ee Japan sidoo kale isla maalintaas madaxweynihii xilligaas ee dalka Mareykanka Truman ayaa saxiix sharciga qaramada midoobe maanta oo kale sanadii 1956 dawladda Japan ayaa sameysay markab nooca shidaalka qaada ah kii ugu weynaa ee xilligaas la sameeyo maanta oo kale sanadii 1974 madaxweynihii xilligaas ee dalka Mareykanka Richard Nixon ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilayo kadib markii ay xoogeysatay fadeexadii caanka baxday ee Watergate maanta oo kale sanadii 1988 waxaa lagu dhawaaqay heshiis xabad joojin ah oo la dhex dhigay dawladaha Ciraaq iyo Iran oo waagaas uu dagaal xoog leh dhex maray maanta oo kale sanadii 1990 Mareykanka ayaa dejiyay ciidamadii ugu horeeyay uu ka sameystay dalka Sacuudiga maanta oo kale sanadii 1991 dawladaha labada Kuuriya ayaa ku biiray golaha guud ee qaramada midoobe ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii 1994 wadadii ugu horeysay ee tareen ee isku xirta Jordan iyo Israa'iil ayaa la furay xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa naga inta